ورحمة الله وبركاته. waxaa salaamaya dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan Soomaalida gaar ahaan intii afkayga garanaysa. waxaa kaloo halkan ka salaamaya walaalahayga Gabooye GYL groupkaas aad aan u jeclahay walaalahayga dhammaan waa salaamaya Gabooye Tumaal whatever ay ka gooban yihiin Gabooye oo dhan. waxaa kaloo ka hadlayay waxay ahayd ninkii maanta soo caayay maxaa la dhahaa Gabooye. aniga I don't care wuxuu ahaa asaga waxba igama gelin aniga laakiin inuu af Soomaali ku hadlaayo un baa arkayay ana haafti inaa jawaab ka dhiibo because shucuurteeda aad u gacsan jiirkiis lahay jadiidka kama qoslo ma fahante. waxa ku sheegay horta first hadalka aan ku bilaabaya Gabooye aniga Gabooyahaas ahay aan sheegaysay wax raq jiidan oo ma eki wax mindhiciro geel cunana uma eki ma fahante. adiga mindhiciraha geel cunana waxa ku baraa qabtaaye waxa meesha ninkii joog jira tahay midhaab waa dog tahay waxaadna u isticmaashay sidii madhibaanka waxa u isticmaashay sidii inay caay tahay sidii naagaha waxay isku cayn jireen aa u isticmaashay ma fahante. caayooyinka qaarna inay ku caytantay maba ahaanba gabadha caynaysay iyo nin fanaana Somaliland iyo Soomaaliya ka hadlaysay caayda waxa keenay oo aadna dhibaan u soo caytantay sidii baaster iyo istubiriyo wacaliyo sidii la isku caynay camal ama dhibaan ka soo dhigatay madhibaan caay maaha muuse dhariyana caay maaha tumaalna caay maaha. tumaal iyo madhibaan iyo Gabooye waa kii aad ku joogtay maxaa la dhahaa Mareykanka ama Yurub aad ku tagtiin aadheeysi kana ahay baasaboorka aad ku qaadanaysay khamrada aad cabtid aad ku cabsaneed caawad lacagta aad ku heshay aad ku soo shaqaysatay ama lacagta ceerta aad ku soo qaadatay Yurub waa taa madhibaanka aad ku qaadatay ma fahante. madhibaanka madaxiisa ku qaadatay baasaboor hadaa wadatid ama qaxooti hadaa tahay magaca aad ku tahay waxa waaye madhibaan ma fahante ama Gabooye whatever ama tumaal ma fahante. waxa ku sheegaya aad baad u khaldaneed gabar baad caysay nin fanaanad caysay fanaan qaran baad caysay waxaad caysay fanaanad qaran waxaana tiri waxa waaye madhibaan war madhibaan haday yihiin ka sharaf badan kaana qiimo badan ma fahante. madhibaan waa qabiil Soomaaliya hadaa tahay Soomaaliya oo haleysay Soomaaliya oo danaaninaysa Soomaali ninka Soomaaliga dhabta ma caayta ma qabiil lama yaqaan ma fahante. adiga isku xishood ilaahay waa ku yiri quraankiisa ku yiri yaa ayuha الناس inna khalaqnaakum min dhakarin shucuuban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum 'inda Allahi atqaakum. karaamana ma taqaanid cibaadana ma taqaanid ilaahay adiga maxaa la dhahaa dambi baa xaqiisa ka gashay ee ilaahay u noqo ma fahante. umada ilaahayna dambi baad ka gashay waxaad ku hadlaysaa gabadha hala waxaad ku hadlaysay wax naaga xataa isku macaayaan I think sidii naag dhilla ahaan jirtay u caytameysay sharmuuta ahaan jirtay ka ganacsan jirkeeda u caytameysay gabar islaameed oo Soomaaliyeed oo fanaanad Soomaaliyeed ah oo dadka dhan yaqaanin oo waxay tahay la yaqaano baad caysay kana tahay waxaad ku caysan wax laga yaqiiqsado bikiya caysay bikiya haab cayside madhibaan wax lagu caytama bal madhibaan waa qabiile ay ama dhibaan aniga ma dhibaan aniga kaana